salaanta bacdigeed waxa la yiri xigmadda waxa laga helaa saddex nin nacasa iyo nin kibrey iyo nin waalan xigmaddaanu ka helay buur madow iyo suldaan xasan xigmaddaanu ka helay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waa mahadsantiin labadiinuba suldaan maxamed muuse faarax dayr hadalka uu yidhi anagu wakiil nagaga ahaa haddii aanu nahay beelaha garxajis annagu wakiil nagaga ahaa aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay intaa waxa weheliya waddanka nimanka madax dhaqameedka ah ee magacii Soomaaliland u bixiyay jeegaanta waxaanu leenahay aad baa u mahadsantiin waxa noo sheegteen sir qafileed baa si wanaagsan xubka uga qaadeen anugu saddexdiina nin ka kibrey iyo ka nacaska ah iyo ka waalan kala sheegi maayee xigmad badan baan idinka helay mar labaad aad baa u mahadsantiin waxaan leeyahay maanta xukuumadda ka jirta Soomaaliland waxa la yiraahdaa jeegaan baa la yiraahdaa sirtii baa sheegtay horena xantaanu u maqlaynay jeegaanta jeegaanay dalka ku filow dinkaana bilaabay waxa wax ka qaban waayay hadaladii caynka ahaa Muuse Biixi oo maanta madaxweyne sheeganaya intuu dhageystay buu suldaankii u jawaabay waaran u soo gooy maxamed kaahina waa la yaqaanaa barigii hore dagaalada xagga dambu ka gali jiro abaabulku yaqaanay laakiin farantanka mu gali jirin waanu seexanay muddaanu hurudnay waanu toosnay ilaahay wuxuu ka dhigayaa sidii uu ka dhigi jiray buu ka dhigayaa Soomaaliland waa xiniyo dabadood annagu xiniyahaanu ahayn xiniyo dabadood baa maanta noo faanay raggii aanu kursiga ku xoreynay ee aanu cadawga ka dhicinay ee xabaalaha lagu guray ee lagu aasay cagafiyada ayaa maanta hajabaya sulaadiintiisa hanjabaysa oo ay sir xuubka ka qaaday aanu leenay jeegaantiinan fashilantay ee sirteedii aanu helay ka xoog roon baanu leenay wallaahi Soomaaliland haddii la isku tixgelin waayay inaan bariisaan ciid lahayn lagu cunaynin bismillaahir rahmaanir rahiim maanta halka waxaanu ku haynaa shirka jaraa'idana ku haynaana wuxuu quseeyaa amba ka hadlaya ama jawaab bixin u yahay waaranka loo soo jaray suldaan maxamed muuse faarax dayr jawaabta hor ka bixinayna wuxuu yahay suldaan buu jawaabay suldaan hadlay ayuu jawaabay suldaankii hadlay fidnada kiciyay iyo kuwii ka sii horeeyay fidnada kiciyay iyo wixii weligoodba soo hadlayay ninna afkiisa waaran looguma soo jarin laakiin maanta waxa ugu baho bilow nagu hadda maanta curadii nagu hadda timi suldaan la afkaagi baa lagu xirayaa oo dadkii aad u jawaabtay suldaankii aad u jawaabtay ayaa lagu xirayaa oo aqliga ka weyn waxaan leeyahay ninka xirayo walaa in yar lagama aamusnay ama in yar laguma eegayni eegmadii aamuskii uu dhamaaday awaala suqar buu horjooga oo kaayli ko imanayo qodobka labaad wuxuu yahay waxay dadku isweydiinayaan ay leeyihiin Muuse Biixi madaxweynaha Muuse Biixi oo madaxweynaha sheegaanta ayaa nagu naqaanaa sababta ugu naqaanaa waxa weeye shan meelood oo khariya u istaagay isagii maxamed kayma istaagay shanta meelood waxay ka yiraahdeen wadani iyo wixii taageersanay waxa laga leeyahay Soomaaliya laga xukumo wadani boqolkiiba 3 baa yahay Soomaaliya laga xukumaa wadani Soomaaliya laga leeyahay wadani Soomaaliya lagu daraya Muuse ku lahaa shalay wadani weeye Soomaaliya lagu daraya maanta sidoo wixii lagu noqon karaya ma isweydiin taasoo Muuse halka tiri ee xaalka bixi waxta Soomaaliya bitiye Soomaaliland bitiye hada doorsada bixi noo noqoto laakiin qasabku islaamna قصوا إسلامنا والله ينقل تجيب إذا كان وحنا محمد كهنو كل يسقال بقول يلا بيه سقال شكي تقال كتبعك كذي دوت قرنسة
1929 كان بربرك الدود قرنيسة 1929 كان عرقابك الدود قرنيسة 1929 أفرتي كان هرقيسك الدود قرنيسة 1929 كان برعاك الدول القبرية اللي قلها مطاق حين الله إلا وصع عدد واحدة سعود قرنيسة أماكن سومالي لا أنت وكسعيا أماكن سومالي لا أنت وكسعيا ريسي ما طال الله قاعد يقول شركة أمانك أو شركة وتصدق أمانك أنت كسر تمنيسي أنت لو قدو قدناي أنت لو ويجاي ما طال الله قاعد يقول شركة أمانك بعض شركة هذا فريد شركة هذا وحنا أنت أقول دريا عن راعينا إياه بروح روح الليلي أما ركوه هسه تقال كذا عدنا ذي هو نيجي دونت هيس كدافع شباب عليته وماته دقالك خدعي هي ماشي مقعدي تقرا خدعي نيجي دونت هيس كدافع دي نيجي دونت هيس كدافع سومالي لانه دقاق تسمعيش اسحاق بي كنت هاجنت تيلنا لوما دغين اني بابادين بربطوا لو تلقى أنا قاعد أقول لك باتو نقدر ما ذي هاي كنت بيصير يجي ندي هاي كذي أنا قاعد ما تو نقدر ما هذا تري سادي تسوي حلو بس هل كي يكون دبيسو يعني كي دبرسته هلا ولا تشوفه oo isugu soo sheegay waxa maanta dalka ka taagan ee rag samaynayo ee aanu ku eega kari laanahay yaanu halkan u nimi waxa la leeyahay baa gimaka la gaaray ninkii suuq yiraahdo hadla yiraahdo war ka daay halka arinku ma aha in la yiraahdo waa xiranta waaran loo soo gooyo waa ku sugayni inta naama aamusayna ama xishoonay sidii uu sheegay labadii oday iga horeeyay yaa arinka dhameeyay sida ay yiraahdeen baanu ku raacsanay kulana soconaa mid yar iyo mid weyn ba diyaar baanu arinka ugu nahay talaan uu hadalkii badin maayo waxaan hadalka ku soo goynayaa aan leenahay ninka hadlay ninka la hadlay ee hadalkiisii daba raacay ee waaranka loo soo gooyay ninka waaranka loo soo gooyay muu oran waxa ka dambeynaya waxa ka horeeyay muu oran ha waanu ku eegnaa anaga meesha ku eegnaa anaga oo hareeraha ka taagan yu waxa sameynaya ragga waxa sameynaya waraaqa googoynaya waanu la joognaa war kama ogolin suldaamadeeda in ma yar inta loo soo diro la xidho bal waxa ka dambeynaya aan eegno waxaan hadalkii ku soo goynaa leeyahay ma ogolin maanta wax badan baanu aamusay wax badan baanu xishoonayn wax badan baanu wax ilaalinayn wixii aanu ilaalinaynay waxay noqdeen malab ma noqon dacar bay ku noqdeen raggii aanu ilaalinaynay halkan waxaanu isugu nimi dareen aanu ku muujinayno suldaan maxamed muuse cune jawaabtii uu ka bixiyay hadalkii suldaan xasan suldaan cabdilaahi jawaabtaa uu suldaan maxamed muuse cune ka bixiyay annagu nagu matalaa annagu suldaan noo yahay waananu ku taageersanay ninka yidhi maanta ha la soo xidho ee afar xiniinyoodli dee ha u yimaado ay arki weydeen waad joogi weydeen khamaar kastoo aad soo dhigteenna faa'iidadeedii waxba idin kordhi waayey anuu example-kaan idin hayaa nin waalan baan idinku matalaya 7 dagaal baad rideenoo sokeeye war miyaydaan xisaabinayn qofku khasaariye faa'iido uu xisaabiyaa wuxuu soo baxay miyaydaan xisaabinba waxa la yidhi ninka waalane marka la daweeyay uu dawada muddo qaato marka la tijaabinayo inuu ladnaaday foosto dolasho la yiraahdo dhaami dadninkan dawadii waxba u tarin uu ku wadaa oo xagga kale ka baxaan ka soo miirsadina wuxuu yiraahdaa warde bahashana ay tiraahdeen dhaami way daloshaa idinku 7 dagaal sokeeye aad rideeno wili foosto dolasho dhaaminaysaan waa nimankiina isba weydiinay maxaad faa'iideen dib waxaan doonayaa in aan anigu laba qodob ka hadlo ugu horeyn odayaasha waa la maqlay hadalkoodii waan kula wada soconaa mid maqan iyo mid joogaba waa mid dad badan ay kaga wakiil yihiin
محمد iyaga uu ka dhashay waan kula soconaa suldaanimada Maxamed Muuse Cune Faarax waxa ku badan Soomaaliland rag fara badan oo ciidamo caleema saarin oo ciidamo oran suldaan buu loo yahay laakiin anagu waxaan leeyahay anagu suldaan loo yahay yaa haysta qodobka labaad ee kale waxa weeye waa Maxamed Kaahin gaarigii horeeyay taayirka xadka soo saaray kaygu ahaa halkii 7 habeenimo SNM oo dhanbi ka soo gudbaysay labadii gaari ee ugu horeeyay ee la soo diray baa kamid ahaa asarkii ee gudaha u soo galay ayaa kamid ahaa adad 7 casho kadib baad soo gashay Burco gubay oo yiri dawladdu la dooni mayno yiri wasiir difaac baa laga dhigay reerkii loo 7 wasiir buu ku yeeshay waxaana tii dawladdu la dooni mayno yaana dawlad sheegaanay dooni mayno baan ku leenahay maanta wax badan kama tarin ee waxa ay waxtarkaaga uu noqday wixii ay ku dambeysay ay ogeyn odayaal shacabana nabadda ku soo dabaalay oo nabadda ka dhigay oo maanta kursiga kugu fariisiyay ee tacabaad leedahay kubaad fariisan kursigan waxaan ku sheegayaa war haddii maalinta xil lagu dhiibaba aad gubto Burco oo qori dabla ay xilka lagu dhiiba uu noqdo waa ayaan daro iyo shaabad xun oo adiga kugu taala maanta markii afraad baad doonaysay inaad gubto Soomaha warka aad soo geysay waxa weeye in aad maanta markii afraad Burco gubto weeye warka aqbalay laakiin maanta dabka aad ku dhajisaa wallahi qaboobi maayo oo lagu wada shidan maayo haddaad maanta dab ku dhajiso inaan dib loogu wada shidanayn taa ku talaga talabaad waxaan leeyahay ummadda dalka joogta fidna la kiciyay fidnada la ragii kiciyay waxba laga ma qaban ragii jawaabayna waara loo soo gooyay ummadoo dhamay taabar xataa ka haato waxay dalka Soomaaliland ka biyo uga soo baxaan khaasaad gobolka Maroodi Sheekh iyo gobolada ku dhow annaga iskale bay yiraahdeen meel kalena halkaan uu mariyo la marin baa ay yiraahdeen taas jawaabteedu waxa weeye in biyo Hargeysa lagu cabbi waayo haba yaraatay biyaba lagu cabbi waayo baan kaga jawaabaynaa waxaanu leeyahay halkii hay'adaha iyo dawladaha inagu caawiyay ceelasha biyaha iyo buurihii ay yiraahdeen hal la saaro waa naasaab loode hadii la saari waayo kuwa jawaabtoodu waxa weeye inaan Hargeysa biyo lagu cabbi doonin oo qaybina aan cabbi doonin qaybina waligeed aan oo manaan doonin waa taasana lagu ceebaba dadka reer Hargeysa waxaanu leeyahay war nabad baanu doonaynaa togneero nabad baanu doonaynaa kuwa soolo nabad baanu doonaynaa kuwa salaamu nabad baanu doonaynaa kuwa awdalo nabad baanu doonaynaa kuwa saxil nabad baanu doonaynaa nabad baanu laanay waa aragtaan waxa dhacaya waa aragtaan wixii buur madoobiyay waa ogeydeen go'aan baa 7 cashe ugu horeysay Siinaaya uu qabsaday aanu gaadnay yaani ka sagaashan jirka tuug loo oray yaa la caaridin halaala shaqeeyo tii waxay noo dhashay yoobkii ugu dambeeyay uu ka degayay war way baqanayaan waa laga baqanayay idinku faraha baruura ku sidataan baruurihii waxa iska tuuray in kale ilaa Suldaan Xasan ayaa tuuray bal wuxuu ka dhaxlaabay isagu eegayna dagaalka waxa bilaabay nimanka lagu yiraahdo Suldaan Xasan iyo Suldaan Buurmadow ayaa dagaalka bilaabay marka ay bilaabeen ninka Muuse Biixi la yiraahdo ee madaxweynaha sheeganaya iyo wasiirka arrimaha gudaha 20 sanadood waxay meerinayeen inay hubka iyo madaxtinimada ay gacanta ku dhigaan inta markay meerinayaan inta maanta ay gacanta ku hayaan maanta ayaanu dagaal ka xumaanay ilaa harti ilaa gadabiirsi ilaa iyo garxaajis inta baa ku qaadaan